kusoo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka waa 19 bisha afraad sanadka 2026 qodobada ugu waaweyn wararka anu xilligan idin haynana waxa kamid ah maxay yihiin ciidamada dawladda federaalka ee geysay magaalada Jowhar khilaaf ayaa soo kala dhaxgalay xasan sheekh maxamuud iyo cali guudlaawe ciidankanse ma arrin siyaasadeed ayaa loo geeyay magaalada Jowhar warbixin ku saabsan warkeena ayaad ku daawan doontaan golaha mustaqbalku waxay gebi ahaanba diideen oo doorasho ay maamulaan madaxda maamul goboleedyada xiisada u dhaxaysa dawladda federaalka iyo Jubbaland ee ka taagan gobolka Gado oo ka sii dartay Puntland oo markii ugu horeysay maxkamadda ciidamada ka dhigtay 2 heer iyo Soomaaliya iyo 9 dal oo kale oo soo saaray qoraal luqadada ku qorna oo lagu soo horjeestay go'aankii Israa'iil ay safiirka ugu magacaawday Somaliland intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu darkoran warka channelka dabagalka wararka hadii ku cusubtahay channelkan ku soo biro subscribe saar muuqaalkana like saar share gare oo la wadaag saaxiibada waxaad tan ku soo dhawaataan faahfaahinta qodobadii aan idin soo sheegay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa saacadii la soo dhaafay ciidamo dheeraad ah oo ay geysay magaalada Jowhar xilli la filayo in doorashooyin ay ka bilowdaan dawlad goboleedka Hirshabelle maadaama uu dhamaaday muddo xileedka madaxda maamulkaasi ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa ka tirsan commandoska gorgor ee xoogga dalka waxaanay ku biirayaan ciidamadii dawladda ee hore u joog halkaasi wasiirka amniga Hirshabelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa gebi ahaanba beeniyay in dhaqdhaqaaqan uu la xiriiro siyaasadda waxaas uu xaqiijiyay in ciidamadan ay sugi doonaan ammaanka Jowhar isla markaana ay ka qayb qaadan doonaan howlgallada socda sidoo kale waxa uu intaas ku daray in Hirshabelle iyo dawladda dhexe ay ka midaysan yihiin qorshaha amniga isla markaana ay si wadajir ah uga shaqeyn doonaan xasilinta caasimadda Jowhar ee guudaan deegaanada Hirshabelle talaabadan ciidan ee dawladdu ay u qaaday Hirshabelle ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhawaan sidan oo kale ciidamo loogu daabulay koonfur galbeed kadibna meesha laga saaray Cabdicasiis Laftagareen iyo cali guudlaawe farqi weyn ayaa u dhaxeeya maadaama guudlaawe uu taageersan yahay isla markaana uu raacsan yahay qorshaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayo in doorasho uu ka qabto Hirshabelle halka Cabdicasiis Laftagareen uu gebi ahaanba ka soo horjeedo qorshahaasi si kastaba qorshaha dawladda federaalka ayaa haatan ah in doorashooyin ay ka qabato maamul goboleedyada koonfur galbeed galmudug iyo Hirshabelle maadaama madaxdoodu mar hore uu ka dhamaaday muddo xileedka haddaba iyadoo arrintan ay jirto waxaa war kulul arrimahan ka soo saaray golaha mustaqbalka iyagoo diiday gebi ahaanba in doorasho ay maamulaan madaxda maamul goboleedyada golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo ah dalladda ugu weyn ee mucaaradka ayaa sheegay inuusan ka qayb gali doonin doorasho ay gacanta ku hayaan madaxda dawlad goboleedyada xilli sidoo kale diidan yihiin nooca doorasho ee wado madaxweynaha Soomaaliya golaha ayaa sidoo kale muujiyay inuusan aqbali doonin in dalka uu galo firaaq dastuuriya iyagoo diiday 2 dariiqo oo ay sheegeen in midna aysan haysan heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay midda koowaad waa doorasho dadban oo go'aankeedu ay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada halka tan labaad ay tahay hanaan ay dawladda federaalka keligeed ku maamusho geedi socodka doorashada musharax madaxweyne Cabdulqaadir Cusable oo kamid ah siyaasiyiinta ku jira golaha mustaqbalka ayaa sheegay in dalladdu aysan ka shaqeyn doonin doorasho la mid ah tii 2022 taasoo awood siisay madaxda maamul goboleedyada mucaaradka ayaa qaba in dib loogu laabto qaabkii hore uu sii horin karo muranka siyaasadeed maadaama nidaamkaas muddo dheer lagu dhaliilayay inuu ku saleysan yahay gorgortan hogaamineed oo xadidaya matalaadda dadweynaha waxa uu sheegay in golaha mustaqbalku ay ku jiraan Puntland iyo Jubbaland isla garteen hanaan doorasho oo aan awoodda ugu weyn siinayn dawlad goboleedyada isla markaana laga fogaanayo qaab kasta oo mar kale dib u soo celin karta ismariwaagii siyaasadeed ee hore dalka kaga dhacay hase yeeshee diidmada mucaaradka ee doorashada dadban waxay ku soo beegmaysaa xilli dawladda federaalka ay riixayso hanaanka doorashada qof iyo codka qorshahaasi oo isna weli aan helin ogolaansho siyaasadeed oo loo dhan yahay oo ka timaada dhanka mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaarkood
dowladda ayaa u aragtay nidaamkan inuu yahay wadada ugu dhow ee lagu gaari karo doorasho qof walba codkiisa uu dhiiban karo, balse mucaaradka iyo siyaasiyiin kale ayaa ku doodaya in geedi socodkaas aan weli haysan saldhig sharci iyo mid siyaasadeed oo mideyn kara dhinacyada ishaya. tijaabadii ugu horreysay ee nidaamkan ayaa ka dhacday Muqdisho dabayaaqadii sanadkii hore, oo markaasi caasimadu ay martigelisay doorasho qof iyo cod ah oo loo arkay tallaabo hordhaca. Si kasta, su'aalaha ugu weyn ayaa weli taagan, kuwaasoo la xiriira sida doorasho guud dalka oo dhan looga wada hirgelin karo iyadoo ay jiraan tabashooyin amni, sharci iyo kuwa siyaasadeed. muranka doorashada waxaa sii adkeeyey wax ka bedeladii dastuurka ee baarlamaanku ansixiyey bishii Maarso, kuwaasoo furay dood cusub oo ku saabsan jadwalka kala guurka siyaasadeed iyo suurtagalnimada in doorashooyinka la filayay bisha May ay dib u dhacaan. arrintan ayaa sii kordhisay shaki ku saabsan in waqtiga kooban ee harsan lagu heli karo hannaan doorasho oo la isku wada raacsan yahay. xiisadan siyaasadeed maaha mid cusub. Soomaaliya waxay tan iyo dib u dhiska dowladnimada sanadkii 2000 la daalaadhacaysay sidii loo heli lahaa nidaam doorasho oo sharciyad leh, xasiloon, isla markaana ay ku midaysan yihiin dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo mucaaradka. dhammaadka mudaxileed kasta waxaa soo noqnoqda muran ku saabsan cidda maamulaysa doorashada, qaabka loo wajahayo matalaadda siyaasadeed iyo sida la isku waafajinayo nidaamka federaalka. khilaafka hadda jira waxa uu sidoo kale ku dul fidsan yahay xiriir hore u liitay oo u dhexeeya Villa Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada, gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland, kuwaasoo marar badan ka biyo diiday qaabka siyaasadeed ee dowladda federaalka wax u wado. taasi waxay sii adkeynaysaa in si degdeg ah loo gaaro heshiis cusub oo lagu wajaho kala guurka. marka la isku geeyo diidmada mucaaradka ee doorasho ay maamul goboleedyadu maamulaan, shakiga ka jira nidaamka qof iyo cod, muranka dastuurka iyo waqtiga sii yaraanaya ee ka harsan dhammaadka mudaxileedka, Soomaaliya waxay mar kale u muuqataa inay galayso marxalad xasaasi ah oo aysan muuqan in xilli dhow ay dhici doonto doorasho noocay doontaba ha noqotee. dhinaca kale, maamul goboleedka Jubbaland ayaa si adag ka hor yimid qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso inay doorasho kaga qabato deegaano ka tirsan maamulkaas, gaar ahaan gobolka Gado, sida dhowaan uu shaaciyay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan. madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay inay la yaab ku noqotay sababta ay dowladda dhexe u doonayso in Gado oo kaliya ay doorasho ka qabato, maadaama Jubbaland ay ka kooban tahay 3 gobol. Maxamuud Sayid Aadan waxa uu xusay in aysan ba aqoonsaneen guddiga doorashooyinka ee soo saaray jadwalka doorashada looga qabanayo degmooyin ka tirsan gobolka Gado, isla markaana lagu soo dooranayo golayaasha deegaanka. dhanka kale, waxa uu hoosta ka xariiqay in iyagu ay xaq u leeyihiin in doorashooyinkoodu ay qabsadaan, isla markaana guddiga doorashada Jubbaland uu haatan ku howlan yahay inuu ka bilaabo degmooyinka gobolka Gado. ugu dambeyn waxa uu ku goodiyey haddii dowladda ay ku dhiirato arrintaasi, gaar ahaan doorashada, ay isdifaaci doonaan siduu hadalku dhigay. docda kale, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa soo saaray xeer madaxweyne oo uu ku dhisay maxkamadda sare iyo maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus. tani ayaa ka dhigan in Puntland ay markii ugu horreysay yeelatay maxkamad ciidan oo 2 heera si la mid ah dowladda federaalka Soomaaliya. gaashaanle sare Maxamuud Cabdulqaadir Xasan, gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee Puntland ayaa loo magacaabay. sidoo kale, gaashaanle sare Maxamed Faarax Maxamed waxaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee Puntland. Dhama Abshir Cabdi Jaamac, garsoore maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee Puntland. Dhama Cabdiqafaar Cabdirashiid Maxamuud, garsoore maxkamadda sare ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee Puntland. Dhama Maxamed Saciid oday, garsoore maxkamadda sare ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee Puntland. dhama Cabdiqani Daahir Jaamac, garsoore maxkamadda sare ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee Puntland. Jaamac Xirsi Faarax, xeer ilaaliyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee Puntland. iyo 2 xidigle, Maxamed Axmed Maxamed, kaaliye maxkamadda sare ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee Puntland. sidoo kale, dhinaca maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada waxaa loo magacaabay gaashaanle dhexe Cabdixakiin Maxamed Saciid, gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee Puntland. gaashaanle Jaamac Saciid Maxamed, garsoore maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee Puntland. dhama Cabdifataax Cabdi Daahir, garsoore maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee Puntland. dhama Maxamed Cabdiraxmaan Yuusuf, garsoore maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee Puntland.
dhamme cabdirasaaq saciid cumar garsoore maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee Puntland gaashaanle dhexe maxamed xuseen axmed xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee Puntland laba xidigle Faadumo Cabdullaahi Yuusuf kaaliye maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee Puntland iyo laba xidigle Mukhtaar Cali Xuseen kaaliye maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee Puntland guun iyo gabagabana wasiirada arrimaha dibadda ee 17 dal ayaa si kulul u cambaareeyay go'aankii Israa'iil ay safiir ugu magacaaday qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya iyagoo tallaabadan ku tilmaamay mid si qaawan ugu xadgudbaysa madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya bayaan wadajir ah oo wasiiradani soo saareen ay ku xaqiijiyeen in go'aanka Israa'iil uu yahay xadgudub cad oo ka dhan ah qarannimada iyo nabadgelyada dhulka Soomaaliya dalalkan ayaa kala ah Soomaaliya boqortooyada Sacuudi Carabiya Qatar Masar Suudaan Liibiya Bangladesh Algeria Falastiin Turkiga Indonesia Pakistan Kuwait Mauritania Urdun Cumaan iyo Yemen aanay si buuxda u diideen tallaabo kasta oo hal dhinac oo wiiqaysa midnimada iyo madax bannaanida dowladaha dalalkani waxay muujiyeen taageerada adag ee aan ruxmin ay la garab taagan yihiin midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya waxay sidoo kale bogaadiyeen hay'adaha sharciga ee dowladda Soomaaliya iyagoo ku sifeeyay inay yihiin kuwa kaliya ee matala kana tarjuma rabitaanka dhabta ah ee shacabka Soomaaliyeed bayaanka ayaa mar kale xoojiyay garab istaaga madax bannaanida Soomaaliya isagoo hoosta ka xariiqay in tallaabo kasta oo dhaawacaysa qarannimada dalkaasi ay tahay mid aan la aqbali karin sidoo kale wasiirada ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqyadan diblomaasiyadeed ay yihiin kuwo si cad kaga hor imaanaya mabaadi'da sharciga caalamiga axdiga qaramada midoobay iyo shuruucda asaasiga ee midowga Afrika waxay ka digeen in ficiladani ay horseedayaan tusaale khatar ah oo halis gelin kara xasiloonida gobolka xasaasiga ee Geeska Afrika isla markaana ay saameyn taban ku yeelan doonaan nabadda iyo amniga heer gobol iyo heer caalamiintaba ugu dambeyn mas'uuliyiintan ayaa ku celiyay mowqifkooda ah in ficil kasta oo dhaawacaya madax bannaanida midnimada iyo wadajirka Soomaaliya in si adag loo diido iyagoo xusay in taageerada dowladda Soomaaliya iyo hay'adaheeda ay xilligan tahay arrin laga maarmaana guud ahaan saaxiibayaal waa nageynta warka channelka dabagalka wararka hadii aad ku cusubtahay channelkan kusoo biiro subscribe saar muuqaalkana like saar share gare oo la wadaag saaxiibada ad ku maasantahay inaad daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadiino nolol kulante iyo amaan Allah